بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan maanta aan u safrayaa magaalada Muqdisho oo berrito ay imaanayaan golaha amniga ee qaramada midoobay Security Council-ka oo laga hadlayo arrimaha Soomaaliya geedi socodka dowladnimada Soomaaliya 2016 doorashada dhici doonta bilaha inay ku soo aadan iyo geedi socodka nabadda Soomaaliyeedba waddankan sidii hore loogu wadi lahaa ayay u imaanayaan anana ayagana meesha kula kulmi doonaa shirkaas ka bacdina dabcan haddii isu timaado madaxda Soomaalidu waxaa laga wada hadli doonaa waxaa weeye ajandayaasha haddana hor yaalla oo doorashadu ka mid tahay shirkii dastuurka bishan dhammaadkeeda ka bilaabmi doona magaalada Garowe ee lagaga hadlayo dhamaystirka dastuurka Soomaaliya qodobadii ugu muhiimsanaa kuwii ugu dhibta badnaa oo aan rajayn doono in dad badan oo Soomaaliyeed isugu yimaadaan arrintaas dastuurkana laga gaaro talo mid ah iyo go'aan mid ah iyo meesha laga aadi doono meesha hadda la joogo dabcan labadaas arrimood baan ugu soconnaa insha allahu shirku waa shir laba beri socon doona ka bacdina dalka ayaan dib ugu soo laaban doona haddii Ilaahay yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin